السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي دمان أصحابتا ku xiran channelkeena Ladan Lifestyle. Meel ba aad joogtaan waxaa idin leeyahay bashbash iyo barwaaqo iyo reen iyo caafimaad ku waara. Haday maalin ku tahay maalin wanaagsan, haday habeen ku tahayna habeen wanaagsan. walaalahayga aan jeclahay maanta waxaan idin kugu talagalay barnaamij aan ahaan Ladan iyo asxaab badan oo igu xiran ama saaxiibo ama family asxaab badan oo igu wada xiran oo friend wada nahnay aan wax badan ka faa'iidnay aan jeclahay ina idinkana idin la share gareeyo waa intaas oo adigana wax ku qabato wax ku tarto barnaamijkan qaas ahaan dumarka ayuu quseeyaa laakiin hadii marbu arinta arin dumar oo hadana qaasatan qof xaas markuu yahay ay si tahay way dumar kaliya ma noqon karto waxay noqosaa gabar walba iyo xaajigeeda marka waxaan idin leeyahay ka faa'iideyso wacan insha Allah waxa ka hadloon wax kala ma ahan waa marxaladaha uurka ama marxaladaha markii uur horta waa la wada ogyahay oo wuxuu kala leeyahay saddex qaybood step 1 step 2 step 3 ama hada u taqaan trimester 1 trimester 2 trimester 3 trimester ugu horeeya ama bilaha ugu horeeya ee uurka waa marxalad aad u adag alxamdulillah qofba ilaahu u fududeeyaa yani qofba si kala duwan ay ku soo martaa gabdho waxa arkaysa aan laga fahmeenin inay yani walac yihiin ama inay uur leeyihiin aan laga fahmin ilaa caloosha uu soo kuusato aan laga fahmeenna jiro gabdhana way ku xanuunsadaan wax walba ay cunaan way ku matagayaan yani jabiga dhan si kale tuu leeyahay kuwana waa iska normal alxamdulillah anaga ahaan kuwa normalka ilaaha naga dhigay alxamdulillah shukrillah idinkan waxa idin rajeynayaa hadaad walac tahay inuu ilaahay ku fududeeyo hadaad xaamil tahayna sidoo kale inuu ilaahay ku fududeeyo waxa jirto marka gabadha ay walac tahay waxyaalaha ugu badan ee dhiba waxa waaye number 1 gabar walba walac marka la kulantid aniga baan iska bilaabo waxa laga bilaabaa waxaan dhibsada waxaan necba cunta laga bilaabo jikada nacda cuntada gurigeena yani waxay necaysaa marxaladaha guriga ka jiro ee necban tahay ani ahaan waxaan sameeyay ama aan sameeyaa waxa waaye gabadha markay ay walac tahay ma sha Allah ilaahay ku barkeeyo waxa fiican in horta guriga ka baxdid hadii horta aan ku sheego Soomaalida dadka naga waaweynaa ama waalid ama hooyooyinkeena ama maamooyinka naga waaweyn waxay dhahaan ma gabadha inta ay bila yar tahay inay socoto ma fiicno waxa fiican markay 7 bil 8 bil ay gaarto inay socoto socodkan oo gabadha markay walac tahay banaanka ay bixayso ma ahan yani socod loogu talagalayo in oo ilmaha ay hoos u soo degtaan ama ay ilmaha kafki soo galaan ma ahan waa kii gabadha caafimaadkeeda aha waay gabadha waxay nuucaysaa inay guriga ku dhex jirto cuntada gurigeena ceesa markaas hadana maqaaxi cunta laga keenay dhehaysaa waa laga keenay isla guriga ku dhex cunaysa shiirkii wixii dhan waa isku imaanayaan qaastan gabadha markay Nairobi ama Kenya ama wadamadan kale ay joogtid hawo fiican ma heysano gabar walba waxay ku dhex xiran tahay flightkeeda ama saddexdeed qol ama labadeed qol ay ganjeelka albaabkeeda ku xiran ma ahan guriga Soomaali camal oo iska waaweena oo markii inta jikada ay tahay qolalkina meel kale ay ka sii ahaayeen oo ay kala fogaayeen ma ahan wixii dhan waa wax hal meel isugu imaaday markaas hadii shaah la karinayo jikada lagu karno qolka jiifka kugu imaana adidan waa isneecaysa markaas cuntadii adoo u baahan hadaa cunto niid ah ka rabtay oo dhehday yani inta noocaas raba lagu karina ama qof walaashaha kula joogto ama qof dariskaaga ha ku caawiyo ama xaajigaaga ha ku caawiyo ama yani ad qof ha ku caawiyo cuntada adaa dalbatay waa jecleysatay waxa tir noocaan raba hal ii kariyo markii qofka jikada uu galay uu isku day inuu cuntada ku kariyo adiga way kugu soo shirtay already waa banacday cuntada meesha ku nacday gaaja meesha kugu sii qabanayso cuntada ma cunaysid waa lablaboone waa sii matagay wali dhibka aduu unbu ku sii haysta marka mid kugu sahlan oo dhibkaas ugu bixi kartid oo aniga aan ku guuleystay oo gabadh badan ay ku guuleysteen waxay tahay cunto guriga hadii ay dhacdo cunto guriga lagu kariyo gurigaas ka bax hadaad xitaa socod aadi karin hadaad yani fikradaha Soomaalida ay kugu jirto dhehaysid jaran dabaqa deganahay jaranjarada ma ka degan kari bila yara ahay bixi kari guriyaha badnaa oo Nairobi ku yaalo waxay qabaan meelo balkoon ay leeyihiin hadii xitaa gurigaaga dhexdiisa ee balkoonka uu ku oolin waxa jira marka baabka ka baxdid guriga hortiisa birir hawo ka soo galayso oo furan jiro meelahaas iska fariiso qof daris jiro waa mase qof walba dabaq uu degan yahay ama xaafada state uu degan yahay qof buu ka yaqaana
guriga ka dhaxbax qofka aad taqaanid saaxiibkaaga ama saaxiibtaada agteed iska aad iska la soo sheekayso soo laabo gurigii cuntada lagu kari qofka cuntada ku karinaayana ka codso markuu cuntada kariyo inuu jikada daaqadeeda uu sii furo uu furo qolkii uu ku furo albaabkii wixii dhan hawada inay ka baxdo oona lagu buufin wax yani carfisooyin ama wax unsi lagu shidin hawuna iska soo gasho guriga uu ku leersado taas waa mid waa ka faa'iideysa cunto marka soo laawatid adii cuntadii waa imaanaysa adoo baahan oo isku gadinaysa waa huwaal waa ka dhargeysa cuntada ma cunte guriga ha sii fadhinina ha sii fiirin meelihii wax ku cunto email wixii aan neceb tahay haddana iska bax soo socsoco galbii camal marka la gaaro oo qoraxda ay qabooban tahay caagaaga yarka biyaha qajaclaha gado jidkaaga iska mar wax yar soo socsoco soo laabo adoo waxaa imaanaysaa fresh xitaa cuntooyinka hadda ku guriga aan neceb tahay muqaayaal waxaa jira cuntooyin oo fudud lagu gado jibsiga oo kaleeto meeshaan hadda aan joogno waxay ku fiican tahay meel walba aad istaagtid waxaa lagu sameeyaa jibsiga waxaa lagu dhex daraa kajambaar waxay dhahan waato yaanyo iyo basal iyo basbaas wax laisku jarjaray isku darsa dhanaankaas cun way ku fiicnaanaysaa haddana wax yar kadib markaa sii socotid fruit yar gado fruit hadda way sahlantahay meel walba fruitkii waa la jarjaraa oo ku diyaarsan laguma dhahoy soo jarjar soo dhaq laguma dhahaa waa soo gadanaysaa waa soo jarjaran toothbigaaga soo qaado jidka ku soo cun hab shareerkaaga ku xiran soo maaha hoostaas soo gasho waa ku caafimaad laakiin hadaa dhahdid fikradaha Soomaalida ay ku jirto waxa waaye waxay ku leeyihiin gabadha mar hadaybo bili yar ee tahay ma socon karto oo dhibaa u imaan karo ilmihiya ka soo dilmi karo dhabarka xanuunayo waxaas ku sameeyna waxaaseeto wax Soomaalida iska dhaadhicisay umadahan caalamka ayagoo uur leh maalinka uurkaas yeeshan ilaa ay ka dhalaan way socdaan kaliya cilad anaga kaliya meen heesta anagana waxa waaye waxa mar walba ku taaganahay fikradiisa gaashameeyadii oo yani dadkeena hore iska dhaadhicin jireen waxaasna waa qalad mar walba waxa fiican in banaanka aadid hawa soo qaadatid waa ognahay gabadha hadda si u fayowdahay iyadoo caafimaadkeeda taam hadii maanta loo iblaamiyaha uura leedahay waxba wixii socday oo dhan wax ay jeclaad xitaa way nicaysaa waxaanu ku keenayo uurkaas ku soo ziyaaday taasna ceeb ma ahan gabdheen dhana isla wada qabno wax maanta aan jecelnaha laga yaab bari waxaan dheena ma baribibo sheyga caawad hal iikan aad lagu keeno isla haweenka dun xaajigaaga u isdhaho xaaskaaga xaligeedkan way cunte way jeceshay hadan ugu lawceli u qaad markuu isdhaho waxaa laga inaa ku horgeyso waxaan marabi waxaas dhan waxa ku keenayo way soo kacay guriga dhex fadhisaa meel ay ka aadayso male telefonkeeda isaga mashquulsan tahay wixii cuntada ay ku soo shira ma karsanayso way ka wahsanay ama laga yaabo inay guriga qof caawiso kaleeto aan u joogin gabarna marxaladan waxay ka bixi kartaa oo 3 bilood ama 4 bilood qaar ilaa 5 bilood dhibkaas haysta qaarna alxamdulillah 3 bil ugu horeysa kaliya waa 3 bil kadib qofka waxa arkay cundidiisa caadi wax walba caadi ugu soo laabanay saddex ku ahaato ama 9 ilaa horta marxaladaha uurka gabadha waxay si sahlan ama si ay ku faraxsan tahay oo yani si oo nafteeda ay ku qanacsan tahay oo gudbi kartaa waa markuu xaajigeeda garab taagan yahay laakiin ka waran hadii xaajigaaga marka adiga ama tagtid ama lablabutid uu ku dhibsanayo marka dhahdid waxaan waa rabaa oo lagu keeno hadana maalin kale markii isla wixii lagu keeno aad dhibsatid aad waxaan marabi asiga haduu ku dhibsanayo oo ku dhahay kaal aad qarash ay gelinaysa waxaan waa soo gaday maxaa u diiday maxaa saan u yeelay haduu qofku uu ku dhahayo kama gudbi kartid laakiin hadii lagu la fahmaayo wiilasha Soomaaliyeed ma sha Allah awalkii hore may fahansaneen oo gabadhan ayadoo walaac waxyaalaha qaar diidayso xitaa furiina imaan jiray way isku dhacayaan waxa leeyahay hadalka igu celisa wixii aan u sameeyo way igu soo law celinay asoona ma dareemi karo markaas marxaladda ay ku jirto gabadhan marxaladda waxay ku jirtaa 50-50 iyada ma ahan wax kala ka dhex shaqeysanayo ma iska warqabto waxay hadda rabtay diiday wax hadal xun ku hadlay qofkii oo waxba ka hadlayna iska maagay markaas meesha waxa ku imaan jirtay furiin iyo isku dhac labada qof inay kala fogaadaan canugooda ugu horeeyay asoo yahay hadana lagu kala tago waxyaalo badan ay imaan jiray laakiin hadda alxamdulillah wiilkii waxa laga yaabaa dhibka gabadha ee mareys ka badan inuu asiga maraayo asigaba uu walaac asiga uu yani yahayba oo la moodo ninka walaac inuu asiga oo dadka dariskooda xitaa ay ku mashquulaan la dhaho waa ninka inaagta maxaa yaa walaac ninka maanta dhanba asile socod asile waxay rabto u keenayo wadaayo galab markuu shaqada ka imaado oo kale intuu labisto qabaysto dharkiisa iska bedel uu dhahay soo bax banaanka ku wada haday ilmo kale hore ugu joogaan
in halka hal xabadu u joog camal inta garabka saarto aydan dhahay soo bax xijaabkaaga soo qaado aan soo socon uu soo socodsiinayo haday labo yihiin midna gacanta ay qabsadaan midna garabka u saarto ay soconayaan وهذا ما شاء الله ويلشان Soomaali aad ay horta u fahmeen taasna ugu mahad celinayna anagana gabdho aan yani aan diyaana noqonin dad jisaar gabdhahan badna waxa la hadii oo 99% ah wax wanaagsan u sameynayso oo 1% aad qalad yar ka gashid waxa la dhahaa wixii dhan intay wanaagi dhan intay iloowaanay waxay dhahaan waxba ima sameeyso waxba ima qabatid qof xunaa tahay taasna anaga iska deeno gabdheen ahaan aan haduu qofkan qalad uu ka galo u maleeyo inuu bini aadin uu yahay qof bini aadin adi oo kale oo qaldam inuu yahay ka soo qaad sidoo kale to waxa fiican oo qurux badan oo yani xaalad lagu tilmaamay aysan jirin marka adiga aa fool tahay ha ka fogaanin ninkaaga ha kula agjoogo ha noqdo qofka saalada qolka yani qolka ku dhalayso qof kula galaayo ha noqdo inuu asig yahay gabdho badan waxa jiro markay 9 iyo 7 ama 8 markay gaaraan dhahay aan hooyadii agteeda aada laakiin wallahi ninkaaga ma dareemi kartid naxariista uu ku qaadayo markii uu ku arko adigoo fool xitaa u gudagal hadii xitaa tahay hooyo ilmo badan soo dhashay canug oo aabihiisa qolka saalada kugula jira iyo canug uu kugula jirin xitaa aaba ahaan naxariis wuxuu u sii leeyahay canugaas kaleeto oo asiga uu kula jiray adi ahaan wuxuu naxariis zaaid uu ku lahaana markii uu ku arko markaa fool tahay qofka afooshisda ilaaha ka sukow qofka dartiisa dhibkaas oo maroosid xanuunkaas shahiidkaas waxa tan qofka oo maroosid waa asiga uu kula dareemaya laga yaabo xitaa awal hada isku dhici jirteen qaladaad badan idin ka dhacay waxaas dhan inuu iloowo uu ku noqdo baari yani raali ma uu ku noqdo waxyaalo badan oo iska keen bedelo taasna ku dadaala aadin hooyo way fiican tahay hooyo akid in lagu dhalo way fiican tahay laakiin waxa ka sii fiican in ninka agtiisa ku dhishid walaahi xaqiiq taasna soo barowe hadii hore laba ilma soo dhashay oo hooyo agtiisa ku soo dhashay hal canug bal isku day in xaajiga agtiisa ku dhishid oo asiga uu u mulbixiyo asiga uu qolka saalada uu kula galo asiga uu kula foosho kula dhibtoodo subax asiga uu biyaha ku kuleen karo mishaarida ku soo kariyo intaas isku day ada arki doonta natiijadeeda videogana marwina oo idin ku sii dheeraado intaas daa sameysid oo marka walac noqotid guriga aad ka bixaysid banaanka aadaysid waxyaalaha maanta aan nacday hadii guriga dhexdiisa ay ku sii yaalan waa siinaysa isku day marka walac tahay inaad socotid inaad banaanka aadid inaad hawo qaadatid hadii laakiin guriga la ku dhex xirantaa guriga la ku dhex jirtid wala waxa laga yaabaa inaadan cunto dhan afkaaga amarsin oo xaalada ay tagtay in dhakhtar la geeyo faleebo aad isticmaashid taasna dhibkaaga adiga iyo waxay dhib u siitaa canugaaga waayo cuntooyinkaas aad cunaysid 3 bilood 4 bilood ilaa iyo 9 bilood waxay faa'iido u tahay jirkaaga iyo jirka canuga waayo waxa isku diyaarinaysaa fooshin ma sahalno laakiin alxamdulillah ilaah horta wuxuu noogu nimceystay daqiiqadaha yartaas afoolanayna bis afoosh la xasuusan yahay laakiin mar haday sas ilmihi ay kaaga soo baxaan waxa waa wixii xanuunkii dhibkii dhan waa iloobaysa oo naxariis ayaa meesha ku soo galaysa alxamdulillah taas ilaah noogu talagalay mar walba ilaah ina ugu mahad celino oo waxa ilaaha mudantaas waxaan idinkaga sii tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ibtisaam yariisa inuu idin salaamusa